الورابي ayaa maanta waxa uu xadhiga ka jiray xafiis cusub xafiiskaasi oo ku yaala degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UCID Aadan Miro Waqaf afhayeenka xisbiga UCID Xasan Xuseen iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa xafiiskana hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faysal Alwaraabe oo ka waramay doorka dhalinyaradu ku leeyihiin siyaasadda waxaanu yiri degmadina aad baa xaleeyay inay taariibaan taariimta waxba inoo keen meesha taariimta waxa inooga fiican inagoo dawlad wanaagsan dhisana inagoo dawlad cashuurteena inoo ilaalisa inagoo dawlad ilaalisa waxbarashadeena kor u qaada mid biyaheena dar yeesho biyo nadiifeena siisa waxaan filayaa inay hadda 7 sanad u buuxsamayaan ama bilka hadhaanaysa markaa la sameeyo timeline ka cusub la sameeyo waxaan arkayaa markaa 7 sano qof hayay madaxnimo hayay iyo sanad uu ahaa ku meel gaadha 8 sanadood iyo 4 waxa madaxweyne ku xigeen 12 sanadood wuxuu soo xoqoqdaa horta meesha oo taal waxay la tahay taas oo ku filan tahay laba xusbaad ku soo haray laba xusbaad macaaradka hoodkiina u qaybiya hadda kulmiye diidaan cusbiya hadda cuddiisana tiya kulmiye sidoo kale isaguna waxa hadal ka soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UCID Aadan Miro Waqaf ayaa isagu tacsi waxa uu diray ehelkii qaraabadii uu ka baxay iyo shacbiga Soomaaliland taliyihii qaybta 12aad ee ciidanka qaranka ee dhawaan lala beegsaday qaraxa gabagabadii waxa iyaduna hadal ka soo jeedisay gudoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran Xalima Cismaan Raage Sagal Mustafa Xasan Nuur Universal TV Hargeysa munaasabada lamida oo ay soo qaban qaabiyeen xisbiga Uduba ayaa iyana waxa ay ka dhacday magaalada Hargeysa taas oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan sida uu ku soo waramayo wariyaha iyaga Qadar Maxamed Cakulle oo nooga qayb galay munaasabadaasi door maalmood kadib markii ay si rasmi ah ula wareegeen xilkii garsoorka guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa dib maalmahan waxa soo ifbaxaya diyaar garow ay xisbiyada Soomaaliland ka sameynayaan si hoose loolanka aan wali la fasixin ee doorashooyinka madaxtooyada munaasabad balaadan ay xisbiga Udub waxay maanta ku qabteen xarunta dhexe ee xisbiga ee magaalada Hargeysa taas oo ay ka qayb galeen xogayaha guud ee xisbiga xubno ka tirsan golaha wasiirada barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo taageerayaasha xisbigaasi ee degmooyinka 26 Juun iyo Ibrahim Koodbuur munaasabada lagu qabtay xarunta dhexe ee magaalada Hargeysa ee xisbiga Udub ayaa waxa ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga Udub Jaamac Yaasiin Faarax dhalinyarada firfircoon oo ay u soo noqdeen halkii runtu ay daalay oo ah goobtan aynu caawa joogno ee xaruntii Udub guud ee qaranka Soomaaliland ee ah in xasilooni iyo nabadgelyo lagu gaaro masiirka ummadda ah inaynu kursigeena xaqa aynu u leenahay jamciyadda qurumaha u dhaxaysa aynu ku fadhiisano waxa inoo balana kifaax baa inoo balana midnimo iyo wadajir inaynu ku hawlgalaaba inoo nabada inoo balana sidaas aynu ku gaarina masiirka qaaliga sidaas aynu isku ognahay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Maxamed Cabdi Daawud ayaa isaguna ka waramay kaalinta ay dhalinyaradu kaga jiraan ilaalinta nabadgelyada iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in dadweynuhu ay fahmaan ahmiyadda ay nolosha ugu fadhido ilaalinta nabadgelyadu isagoo sidoo kalena soo qaatay doorka ay boolisku ku leeyihiin ilaalinta nabadgelyada oo abuuri mid aan la dafiri karin isla markaana loo baahan yahay inay dadweynuhu gacan toos ah siiyaan booliska nabadgelyada waxa ilaaliya dadweynaha nabadgelyadu way iska ilaashatay nabadgelyada shicibku ka qayb galay dadweynuhuna uu ka qayb galay laakiin haddii aanay maamul nabadgelyadu lahayn fawda iyo wareer iyo jab lagama baxayo dadweynuhu wuxuu u baahan yahay cid ku hagta nabadgelyada qaar ka mid ah dhalinyarada degmooyinka 26 Juun iyo Ibrahim Koodbuur ayaa madasha ka sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin xisbiga talada haya Udub waxaana dhalinyarada si weyn ugu soo dhaweeyay madashan gudoomiyaha xisbiga Udub ee gobolka Maroodi Jeex Ismaan Waxar Khadar Maxamed Cakulle Universal TV Hargeysa